munaasabad ay ku qalin jabinayeen qaar ka mid ah saraakiilka kala socday wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka banka dhexe ee Soomaaliland xafiiska xisaabaadka guud ee Soomaaliland wasaaradda ganacsiga dalxiiska iyo warshadaha Soomaaliland ayaa maanta ka qabsoomay xarunta wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland waxaana ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland xisaabiye ku-xigeenka qaranka Soomaaliland gudoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliland iyo sidoo kale qaar ka mid ah shaqaalooyinaha wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka tababarkani oo in muddo ah ka socday xarunta wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland ayaa waxaa lagu tababarayay shaqaalahani maamulka xisaabaadka gaar ahaan shuruucda xisaabaadka dawladda ee caalamiga ah iyo wax iibsiga agabka dawladda ugu horeyn waxaa munaasabadani ka hadlay isla markaana ka warbixiyay ujeedada tababarkani Axmed Nuur oo ah khabiirka bixinayay tababarkani waxaana hadaladiisii ka mid ahaa maanta waxaynu halkan isugu nimi xidhitaan aynu u xidhaynay saraakiil ka socotay laba wasaaradood iyo laba hay-adood oo tababar ugu dhammaaday halkan tababarka xisaabaadka iyo maamulka dawladda iyo wax iibsiga dawladda public procurement-ka tirada maanta hadda qaadanaysa shahaadooyinka waa 9 7 ka mid ah waxay dhameysteen waxay baranayeen ama trainingkooda ku saabsanaa xisaabaadka iyo maamulka xisaabaadka dawladda ama public financial management gaar ahaan waxay qaadanayeen course loo yaqaano IPSAS certificate oo ah shahaadooyinka ay bixiso institutionka loo yaqaano ACCA oo ah one of the leading mataqaana institution oo xagga accounting-ka ah in yar haddaan markaa halkaa ka bixiyo faahfaahin IPSAS-ku waxa weeyaan international public sector accounting standards waa shuruucda lagu dhaqmo marka la diyaarinayo xisaabaadka dawladda intii kulankani socday ayaa waxaa halkaasi hadallo kala duwan ka jeediyay ku-xigeenka xisaabiyaha guud ee qaranka Soomaaliland iyo sidoo kale gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland waxayna ka warrameen muhiimadda uu tababarkan u leeyahay qaranka Soomaaliland aad baan ku hambaleynayaa guusha aad gaadheen gaar ahaan wasaaradda qorsheynta iyo Macal Axmed dadkan ay soo saareen sida Axmed sheegana dalawa accountant-ka 3 iyo 4 baan ku hayno mid qoloba nooga muuqdo kuwa kale ma meel dhexe ku hadeen marka aad dadkii u soo adkaystay maanta soo gaaray halkan waxaan leeyahay guul ay gaadheen sidii reformku wax weeye marxalad badan buu ka gudbayaa marka adaan ka shaqeeyo accountant-ka kaliya waxa la isticmaalaa waxa laga guuray in diiwaanadii wax lagu qoro waxa loo guuray in la isticmaalo Somaliland Financial Management Information System oo isagu laftiisa la rabo reportkiisa inuu ku diyaariyo IFRS-ka waanu soo gaari doonaa wasaaradaha dhan in wasaaradda walba reportkeeda ay ku soo saarto systemka ay ka jeedinayso gobolada waa la gaarsiinayaa qorshahaas waa diyaar waxay ka mid tahay waxyaabaha ay markaa barateen sidii hantida ummadda lagu ilaalin lahaa systems ilaaliya oo qofku ayna u hawl yaraanin dadka bini'aadanka damacu iskaga jira haddaad wax dayacan qofku arko iska qaadanaya laakiin qofku uu ka fakirayaa wax adag oo la adkeeyay oo systemskii control ay adag yihiin inuu ku dhaco waxa weeye systemkii baa ka shifaya laakiin markaad ogtahay inaanay wax alla wax ku ka shifiyaa jini wax kugu cadeynaya waxa weeye dadka intiisa badan damaca iyo shaydaan baa yaa duubsanaya marka waxaan aruur ku jecelahay waxa weeye in badan buu soo taagnaa programkan recruitment-ka dawladdii hore daahir yaale yaa waxay bilaabeen xafiiskii halkan ahaan jiray xisaabaadka marka waxay develop gareeyeen looga ku saabsan recruitment looga iyo ka public finance management-ka ilaa waqtigaas uu dhaqaaq laa haddii maanta uu gaaray heer dadkii shaqaalaha lagu tababaro oo go'aan lagu soo gaaray sidoo inoo sheegay xisaabiyaha guud in ay noqonayso xisaabaha dawladdu ay systemska dhammaantood markaliya la jaan qaadayaan sanadka bacdi waa guul weyn oo ay Soomaaliland gaadhay waa guul weyn oo ummaddu maaragtay horukac gaarayso idinkuna waxaad tihiin dadkii ugu horeeyay ee ka qayb gali lahaa sida systemkaas uu noqon lahaa effective waxaan ugu ballan qaadaynaa in dadka shaqaalaha ee halkan jooga ee u dhabar adeegay inaanu ka faa'iideysano annaguna oo tayadooda aanu kor u qaadno ay waliba noqdaan macallimiin dadka kale shaqaalaha ay u tegiyaan iyaguna tababara
oo sidoo inoo sheegay macallin Axmed ayna noqdo dibadda looga keenay hadii jeer aynu inagu isku kaashano oo ugu dambeynna waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland mudane Cabdirashiid Ibraahim Sheekh Cabdiraxmaan waxaana hadaladiisa kamid ahaa waxaan u mahadnaqayaa Axmed Nuur iyo xafiiska BIU da score mashruuca score oo runtii hawshan iyo tababarka ardaydan kaalin weyn ka qaatay ay kana mid ahayd waajibaadkii hawlaha ay qabanayeen tababarkan qaateen maamulka xisaabaadka dawladda iyo iibka agabka ay dawladdu u baahan tahay waa tababar runtii aad loogu baahan yahay waqti xaadirkan oo isbedel badan lagu wado maamulka maaliyadda qaranka waqti loo baahnaa bay runtii ay tahay oo leedika filayo inaad kaalin ka qaataan hawlaha socda ee dib habeynta lagu sameeyo habka loo maamulo dhaqaalaha dalka hadii la yiraahdo waxaan runtii aaminsanahay inaad intiinani aad uga faa'iideysateen hay'adaha dawladda iyo wasaaradda qorsheynta qarankuna waxay qaadan doonaan hadii la yiraahdo kaalintooda sidii shaqaalihiina ku guuleysay tababarka dhameystay loo hawlgelin lahaa shaqooyinkii ku haboonaa ay u tagi lahaayeen waxaan dareensanahay iminka shaqaale badan oo kamid ah shaqaalihiin halkan fadhiya inay ka shaqeeyaan goobihii loo tababaray goobo aan ahayn marka anagu wasaaradda waxaan ka hawlgelaynaa si qof kasta loo geyn lahaa goobta aqoonta uu qaatay ku haboon hadii la yiraahdo arinta kale muhiimka waxa weeye waad ogtihiin isbedel weyn baa maamulkii maaliyadda dawladda ku socda iminka arinta muhiimka wanaagsan waxa weeye in foojaradii iyo nidaamkii xisaabeed dawladda lagu shaqeynayay in gabi ahaanba online laga dhigay dhalinyartiina hadii la yiraahdo insha Allah waxaan rajaynaynaa in dadaal badan aad sii muujisaan hadii la yiraahdo waa laga yaabaa caqabado yar la kulantaan caqabadahaas inaanay noqon kuwo waxdiyaala kuwo koridiisa qaada hadii la noqdaan insha Allah hadii la yiraahdo gabagabadii munaasabadanina waxaa shahaadooyin ay mas'uuliyiintaasi guddoonsiiyeen saraakiishii dhameysatay tababarkani